السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنه ونكسن داودياشا يا قيمة هي قدرنت مدن ميل كستا دونك كجوجتان كسو دوادا برنامج كيني وعي قلنتا عاد كلا سعون ترتين برتا إذا فيسبوك أما برتا يوتيوب عميرة خضراء برودكاست ما أنت وحان دين هيا أرين آدي دوليا بدونتان مرنا عاد كنحي دونتان مرنا عاد كوقصلي دونتان نكن وحو شيغيا in ragga Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ama diasporaha in ay wax allaale waxay awood leeyihiin aanay jirin oo ay naagtu ka adag tahay daba isagii oo ka dhigaya xumaan ama cay ama deninaan haba yaraatee awood ba lahayn waa sida dhaqanka Soomaaliya looga dhaqmee in gabadhaasi waxay doonto iyadu qabato isaguna ama uu dibadda ka soo shaqeeyo ama uu geela raaco marka ninka aqliga saliimka leh wuxuu u fahmayaa heestan uu nimanka Soomaaliyeed ee qurba joogta uu ku ataagayo oo uu ku ceebaynayo oo uu ka dhigayo haba yaraatee niman aan awood balahayn oo wax raganimo ah ay sheegan karaan aanay jirin idinka yaabi doonee bal ila yara daawada qaybta hore waxa la yiraahdaa xafashkii maryaha ma xafuujin waa hees la yaab leh weeye qurba joogta ku saabsan tayadu iyo nimanka ma garanaysa xiliga laga saaray joogaan beed qurba nimankaas ku socotaa waxay tiraastay xafashkii maryaha ma xafuujin xashiishkiina daaradii kama xaarin kii yarana waa wixiqo ma xambaarin xafaayadna muu xidhnayna wisku xaaray talalam 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 naagteedan xooga weyn lama xishooto xanaqeedu fooda weeye sida xoorka inta aanay i xabaalin xabsigay geynin furi maayo xafadaydu hay xidhnaato tahay si fiican baadna u dhagaysateen ninkaas wuxuu inoo tilmaamaya waa nin qurbaha ku nool oo reerkiisa xanaanaysanaya oo reerkiisa caawinaya oo caruurtiisa xanaanaya meeshuu ku noolaana nadiifinaya dharkii ubadkiisa iyo dharkiisiina maydhaya ayuu wuxuu ku tilmaamay nin aan waxba ahayn ragnimadiisuna ay kala dhantaalan tahay wiilkaas waxaa leeyahay Soomaaliyeed iyo inta fikirka qabtaba ninka daciifka ah ee ragnimadiisu buuxin waa ninka aan reerkiisa caawin waa ninka aan caruurtiisa xanaanayn waa ninka aan ubadkiisa tusin wax jacayla haba yaraatee ninkaas ayaa ah nin daciifa taa waxa ka sii daran waxa uu soo wado oo uu inoo sheegi doono bal idinkuba waad yaabi doontaan ila heliyalow hobow heliyalow heliyalow hobow heliyalow tolay 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 ya xagiimiigi xidhka geeya ya xanuujiyo oo xawrwaala xabaya u dirto ku xamaasha ya digada soo xaar xolahana celi kimisnayno xash ku yiraahda madaxa lagu dhufanay taxaganti madadii alla ninku xaasidsana kan ma bini aadan baa la oran karaa na wuxuu hawl inala maray iyo halkuu ina geystay oo inaan qaarkeenba weligeen arag intuu haw inala yiro baadiye salkeeda ina geeyay buu wuxuu ina yirnaa xaabadii soo gur oo sabaayad ku dub oo saaladii xaaq oo hawl kasta qabo taa waxaa iiga sii daran lo'dii iyo geel iyo adhigii raac ku yih oo duurka la aad waa libaaxii dhurwaagii dawacadiina halkaa kuga sugeen yaa oo hawka jabsadeen subxaanallah taa waxa ka sii daran oo kaba xanuun badan haddii alla ku soo fakiyeyba oo kuwii ka soo fakatay markaa guriga imaaday abaaye lulaaba ku sugaysa subxaanallah ushaa ku sugaysa baaba aniga wax walba iiga daran ushana muxuu ku maaga talo xayawaanka xitaa lama dileen yaa xayawaanka xitaa lama dilo waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed fikirka qaldan aad walaal qabtaan waa fikir qaldan qofkan aad caawinaysid qofkan aad u qabanaysid waa ilmahaagi ma aha ilmo dariska ah ma aha ilmo ay gabadhu iyadu kuula timi ma aha ilmo ay meel kale lagaaga keenay ma aha ilmo walaasheed dhashay waa caruurtaadii xanaanaynteedii baa inta heerkaa kula gaaray baadiyana geysateen nagu garaacdeen dawacooyin libaaxyana noo dirteen xaabana nagu gurteen yaa baa weliba waxaad leedihiin subxaanallah 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 baa weliba sii qabtaan anigu waxaan ba oran lahaa sheekada hadday halkaa marayso dumarow iska badaaya wixiina idinku iska qabsada walaalayaalo idinku wixiina qabsada intii halkaa la idin geyn lahaa oo la idin tumi lahaa qofkan aad aragtid
yiri maanta ilmahaygii dhar ka bedeli maayo oo u qabayn maayo oo baambar ka bedeli maayo yaa ceeb u qaatay haddayba sidan tahay sheekadu aan waxaan baysla dhihi lahaa wixiina idinku iska qabsaday inta halkaa la idin geyn lahaa aniga halkaasaaba caloosha ka xanuuntay duurkaa la ii diraaye geel iyo ariga ah iyo ushaa layla kor taagan yahaaba caloosha i gubtay aniga subxaan haddaan basaalada iyo sawaayadda iska dubi lahaa iyo xaabada meelaha kasoo aruurin lahaa yaa gurigaan yare albaabka balaqanna aan iska dhex fadhiisan lahaa yaanan baseexan haddaan rabee yaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah waxaas ma nololba xayawaanka xitaa nolosha uu leeyahay waa idin gelinayaa oo waa idinku garaacaya oo waa idinku baabi'inaya walaalayaal xayawaanka xitaa lagulama dhaqmo idinkana bini aadan gabadh ilma kuu dhashay ilmahaaga hooyadood xaaskaagaad adduunka ka dooratay baad intaad waday inta kilomitir aad kala carartay iyo meesha aad la tagtay xaasinimadeeda bal fiiri subxaan allah muxuu yiri hadday xanaaqdana lalamaba hadli karo da wuxuu rabaa markay xanaaqda inuu bahal feera ku kiciyo labada ilkooda hore kasoo daadiyo walaal dunidii way hormartay nin yahow waxaa lagu yiri gabadhaasoo gabar soomaaliyeed waa gabar walaashaa ah waa gabar aan waxba ku yeelin awood ma laha ha taaban baa lagu yiri waxba ha yeelin baa lagu yiri sharciga lagaaga dhigay inaadan waxba yeelin miyaa ragganimadiiba kaa qaaday kan qalalanaysna waxaa igu daran jooga baadee Soomaaliya ee rag iyo dumarka qurbaha jooga isku diraya raganimadu haysta maxay tahay nolosha uu gabadhu leeyahay waa la gelinaya iyo waxay u dhaqmayso war baranbaradu xitaa kuma noola baranbarada xitaa lama geliyo noloshaada aqli ku alla kuma siinin nin weyn baa tahay intaad meel soo istaagtay baad waxaad isla soo taagtay waxaan bini aadan kuba ku dhaqmin oo bini aadanimada ka fog war xayawaanka ayaan saa loola dhaqmin wisla fiican yahay hada kii kaliya bela ka dhacday nin heesoo sameeyo way soo qabaan innagaaba wax aragnay haddii sidaan ayba tahayba sheekaduna halkaa marayso gabdhow gurminihiina jooga Soomaaliya dad la geeyo wayba jiraan haddeertadan qaar iyo hadda ka horba oon anigu markhaati ka ahay inta la waday gabdho Soomaaliyeed baadiye ma la geeynin haddii la rabo baadiye la geeyay iyo Soomaaliya baasaboorkii laga soo xaday iyadii caruurtii uu soo noqday isagu Yurub uu fadhiistay uu naa kalena hoosta ka galay subxaanallah waxaasi raganimo maaha ninka ragga ah waa ninka reerkiisa haysta waa ninka naagtiisa caawiya waa ninka naagtiisa wata waa ninka ilmihiisa wata waa ninka ilmihiisa ku faana nin Soomaaliyeed oo wali lama arag ilmo meel la maraya nin Soomaaliyeed ilmihiisa ku faanaya arkimaysa subxaanallah marka waxaan idin oran lahaa dumarow idinkuna taxadara oo haddaba haddii la idin Soomaaliya holiday la aada baasabooradaada ha ku ahaata le bacdaada dhuuqso baay haddii kale waad u jeedaa sheekadu meeshay maraysee waxaan idin oran lahaa nimanka iska sasabto yaan halkaa la isgeynine oo la isgaraacine iska sasabta oo bal situationka bedelaan idin oran lahaa laakiin ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay fikirkan foosha xun ee qaldan waa fikir aan waxba ka jirin kan Soomaaliya joogana kan uu leeyahay xiniyaha laga siibay isagu baryaa isagu tuugsadaa kale adawaad ka sii liidataa waad ka hoosaysaa Soomaad fahmin ninkaagan sheekada isla soo taagay suuqyada ee iska dhigay nin bal ka dhacday oo hees qatar sameeyay dumadu ay kula yaabin banaan u kooran lahaa waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba dhinac walba famil walba hay soo naxariisteen hay is jeclaadeen wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh